عياري مالبوك سعودي Australian Cup Federation Somali Cup 2013 waxaa soo haray labada team Carlton iyo North Melbourne waxay leedahay saddex eber maadaama last year ay Carlton ay koob qaaday guuleystay hadda ciyaarey waxay marayaan gabagaba maadaama iyadana ay Soomaalida ka timid adaleed labada team oo hal team hadda uu soo baxay teamkaas oo soo baxay oo khibrad u yeeshay labada sano soo dhaafnay laga badinay laakiin hadda wuxuu soo gaaray quarter final team kale maadaama laga badiyay asiga quarter final soo gaari waayo khibradiisa aad u yar wili laakiin wuu gaari doonaa insha Allah igana let's watch yara ku dhamaan doonaa well done. saddex eber la kala maraya hadeer qolada dharka gaduudka casaanka wataan ayaa saddex leh eberna waxaa leh Carlton oo dharka buluuga ah daawasho wacan garoonka maanta aad buu u buuxaa Soomaalida ku dhaqan Melbourne aad bay u taageerayaan dadkooda taageero ciyaaraha meesha ka socda saqiir iyo lama kala harin dhalinyaro gabdhaha wiilasha kulli odayaasha hooyooyinka sida aragtaan garoonkood buuxaa dhalinyaro gadaasha ka qeynanaya waa taageerada North Melbourne well done Yusuf ciyaarey waxay marayaan 4 waxaa iskale North Melbourne laba waxaa iskale Soomaaliya dhaleyd كودر انت جدا عرفت علي ابلا برو نيك بونو دربي سكن يلا واي كوش هرتي laga badisay warta كوش على wuxuu kala tuurax kale نيك بونو مدربي maxaa markii la ku dhashay may waa yelo roosul qabaan roosul markii arabka nixi minus gareewa fiiro dikosh wanka waraysi sawarta ciyaar waxaa ma waraysto ku baraadnay ma hadda chance tada waqtiga laga nastiraya waraysi ku soo gaaraya waxna qasi ka daa ايوه احنا قباد لما لا الولي لا اسك بدي جري دمور ان شاء الله ما سته ان شاء الله kooxda ciyaarta meesha ku dhimatay Soomaalida ka timid adaleed maanta guusha ay soo gaareen waxa kamid ah qalinta labaad ay galeen waxa weeye maanta Ahmed Awil oo hadda waraysiga ogolaaday Ahmed kalin fiican baa timid last 4 years ama 5 years intii maanay wili lama soo gaarin natiijada aad gaartay see waragtaan natiijada aad gaartay brother والله هو نتيجة في عندها قارني إنكستو ماركنا عيالك أي أنتاني إنك بدن أكو دركرين ذلك وذا لكن والله وحوادي ما تبغون وقتها هذا واحد كل شيء وين كوحدة لقب بقاي تيم كوادة كوبا حالي لما دفع دا وضلنا وحامسنا يعني أنا كنح بحلا إيجا وأكرر لها
لكن نصيب در الدفاعي بان ايغا مقنay تعالوا ان شاء الله next year كدام ما عرفتي سواد كينا ما دام حتى aan laba tiim aan naqan insha Allah next year aan soo xoogeysano oo aan meeshan ka gudubno salagama yaabo ha si fiican next year insha Allah inaan saan dhaano ma sha Allah insha Allah soo xijin laba tiim adigna ku maadsan tahay horumarka dhalinyarada gaarsiisay maadaama aan hayraadada aanay ان شاء الله نقدر كل قرب تاغنا ان شاء الله كوتشكينا ما ستايا ان شاء الله كاس وحو كوتشكي Soomaalida cadaalad ka socoto Axmed Sar Axmed ciyaartii meesha ku dhamaatay maadaama aynu gaarnay semi quarter final hadaba waa inoo insha Allah next year iyo anagoo xoog inta ka sii xoog badan waa noo geliyo taariikhda maanta waa 20 bishii 2013 iyo anagoo ah duube Mr. Yonis Aadan noo geliyo insha Allah يا Soomaaliya reedaa markii ugu horeysay quarter final ay timaado haddana waxa ku soo toostay North Melbourne kooxo ay ku jirtaa kooxo ugu adag laagna maanta nasiibkeeni Sorry. How much you happy? Very happy. We lost last year. Of course. Yeah. Last year كانوا سنة كان الناس وعشنا. مركو عشان نستير الناس هذا وبس ضابط. إن شاء الله. إن شاء الله. أنا فارق أمانة نتصل. وما صدق إن شاء الله صار. ناس. يا ناس قول. ناس قول. هاشم good now good. يا هر Adelaide. We gonna win next year هر Adelaide. إن شاء الله. يا وين Adelaide. maanta taariikhda waxa weeye 29 guushi waxay raacday North Melbourne qolada oo dharka gaduudka casaanka ah marka insha Allah next year waxaan rajaynaynaa reer Adelaide inay koobka qaado nabadgelyo iyo daawasho wacan insha Allah iyo website-keena somali.com يعني يونس دوبه صور قاده يا دوبه ان شاء الله ما شاء الله يا ريم waxay marayaan four waxaas kala North Melbourne laba waxaas kala Soomaaliya Adelaide كونتر انت كلا بلا نيك بونو دربي سكن يلا كوش هرتي laga badii sawarta كوش على wuxuu qabto ruux kale نيك بونو madribey maxaa markii la ku dhashay maya waa yelo roosul qabaan roosul markii arabka next year nus gareewa fiiro de coach wanka waraysi sawarta waxaa ma waraysto ku baraani ma hadda chance tada waqtiga la dhameystiraya waraysi ku soo waraysi wax naqsi ka daa هاي احنا قبان المال والله الولي لا اسك بدي جري دمور ان شاء الله ما سته ان شاء الله كوxda ciyaarta meesha ku dhamaatay Soomaalida ka timid Adelaide maanta guush ay soo gaareen waxa kamid ah qalinta labaad ay galeen waxa weeye maanta Axmed Cawil oo hadda waraysiga ogolaaday Axmed kalin fiican baa timid last 4 years ama 5 years intii maanay wili lama soo gaarin natiijada aad gaartay see waragtaan natiijada aad gaartay brother والله هو نتيجة في عندها قارني إنكستو ماركينو عيالك أي أنت إنك بدن أكو دركرين ذلك وذا
laakiin wallahi waxa waaye Not Melbourne oo ogtahay waxay ku jirtaa waaweynka kooxda laga baqay tiimka waada koobka hal iyo laba difaac wadan lahaa waxa aaminsan aniga inaan ka dhex bixi lahaa iyaga oo ka reer lahaa laakiin nasiib darro difaacyadii baan iga maqnay caadi waa insha Allah next year ka dambeeyo maaragtay soo adkeynaa maadaama xitaa aan laba tiim aan naqan insha Allah next year aan soo xoogeysano oo aan meeshaan ka gudubno soo lagama yaabo si fiican next year waa insha Allah inaan saan dhaano ma sha Allah insha Allah soo xijin labada tiim adigna ku maadsan tahay horumarka dhalinyarada gaarsiisay maadaama aan hayraadada aanay إن شاء الله نقدر كل قرب تاجنا إن شاء الله كوتش كأنه ما ستايا إن شاء الله كسبوها كوتش كي سومالي ذا عدالة كسعته أحمد سر أحمد يارتي الماشي كله معطي ما دام إنه قارني سامي كوتو فاينال هذا هو إنه إن شاء الله next year يعني جو حوك أو أنت كيسي حوك بدن وإنه تقول لي تاريخ ما أنتوا تقول له هاتن بشي لو تورات 2013 يعني جو دوبه مستر يونس هذا ما بتقلي إن شاء الله يا أبا Soomaaliya baa markii ugu horeysay Court final ay timaado haddana waxa ku soo toostay North Melbourne kooxo ay ku jirtaa kooxo ugu adag laagna maanta nasiibkeeni Sorry. Look at me.